marka hore waan kaaga mahad celinayaa Professor Ciise Maxamuud xalane dalsan TV marka hore kusoo dhawow marka xigta wariye Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir waxaan ognahay maanta wax aan la filaynin in golaha shacabku ka dhaxdhahay marka ka aqoon-yahan ahaan aragtidaada wixii maanta dhacay. bismillah wa jazakallah wa ku dhawahay dalsan manaha markii ugu horeysay waa aad ugu faraxsan insha Allah waxa tiri Cabdi waxaan la filayn nolosha laftirkeeda waxa la dhahaa waxa ka buuxa lama filaana far badan markay siyaasadda noqotana waxaana lama filaanahay maaha waxay siyaasad ku tahay lama filaanka sida annaga inna lillah malaka mawdka noogu imaanay lama filaan xaqiiqda markaad fiirisid aragtideeda macna adiga weydiisid ma ahayn wax lama filaan aniga aragtideeda sababtoo ah waxaan darasayay intan Allah ku ekeeyo in aad uga falxun inay macna dhicin karto waxaan dhahay hadii dawladda khayre ay dhaafto 3 bilood ila 6 bilood waxay noqonaysaa dawladda aad u siisayta dheeraysata oo muddadeeda aad u dheeraata sabab kastaba laakiin dhamaadkeeda waxaan dhahay waxaan ka cabsanahay inay noqoto mid dagaal aan hore loo arkin oo dhaco sababtan u dhahayna waxay ahayd qaabka markaad fiirisid Soomaalida siyaasadan dhow hadda Soomaalida ay ku wada indha qaadeen dhamaadkooda markaad fiirisid waxay dhamaadan fiicnayn Shariif markaad fiirisid laba Shariif ay isqabsaday Xasan markaad fiirisid xurgufaa jirtay qaada dhacas marka waxa waaye dadka waa inay fahmaan waxa markay dhacaan meelaha iska leeyihiin meelaha kala gedisan yihiin marka aniga ilama ahayn lama filaan waa filaayay ilaahay intii oo xuma ilaaha naga yareeyo marka waxay ahayd wax la filaayay astaanta kale to macna ay leedahay lama filaanimada ku leedahay waxa waaye meertada siyaasadda Soomaalida markaad fiirisid waa 4 sano طبعا dhamaadkeeda markaad fiirisid meertadaas ama cycle-kaas waxa khasab ah siyaasiyiintii ama dadkii ama kulli waxa imaanay wax la dhaho tuhun iyo tamac iyo shaki far badan intaas oo dhan waxay keenaysaa sababtoo dadka waxay fiirinayaan meesha markaas la joogo lama fiirinayo barnaamijyada dawladda lama fiirinayo waxa la fiirinaa doorashadii waxa la fiirinaa doorashada wax ka dambeeyo taasa marka dadka far badankiisa aysan weli fahmin in maadaama aan lahayn siyaasad sal adag waxay doontaa ku sal adkaatay aan lahayn ay tahay dad macna la isku soo jujuubay sababtoo markaad fiirisid khayr iyo farmaajo ma aqaan inay iska saayeen kala xataa shakhsiyan sheega macna taas marka waxay ku tusaysaa siyaasadayna inaysan ka fadhinin dadka hoggaanka ah oo iska siin laftirkooda waa caqabad weyn Soomaalida kana ma arkaan taas marka dhamaadka marka in macna tuhunkaas iyo tamacaas iyo shakiidaas fara badan iyo cabsidaas keenaysa waxa la yiraahdaa hasha waxa maaragtay taasi dayda macna siyaasiyiinta dhan maanta ma arkayaan barnaamijka siyaasadda dhamaystirkiisa waxay u wada jeedaan doorashada soo socotay kaalintii ku lahaaduna taas marka waxay keenaysaa isdardar fara badan oo siyaasadeed oo jab fara badan ka imaanaya dhaxda macna siyaasiyiinta dhexdooda ka imaanaya niyadjabna ku dhacay Soomaalida koray koonfur meel kala degan yihiin marka taas ay macna waxa dhacay ma ahayn wax oo xaqiiqda la dhihi karo waa lama filaan waa gartay laakiin dad badan waxay qabaan maxaa isku soo beegay ay leeyihiin iyadoo dhawaan Dhuusmareeb laga soo noqday ragganna waa rag 3 sano iyo dhowr isla soo shaqeeyay haddana in badan sida khudbadihii ugu dambeeyay madaxweynuhu kala fadhiga xiritaankiisa uu ka sheegay inay isla dhameysan doonaan taariikh uu reebi doono haddana shir baa dhawaan laga soo noqday arrintan baa dhacday marka maxaa isku soo beegay mar labaad in Cabdiwaxiid waxa waayay waxaan mar labaad ku soo celinaa siyaasadda waa lama filaana far badan oo khasabay inay dhacdo taasa keenayso lama filaankaas marka waxyaabaha ka keenaya waxa waayay dhamaadka siyaasadda markaad fiirisid bilowga anaga siyaasaddeena dawladnimo maxaan ku dhahaa aadan cadde Allah yarxamiyo Cabdirashiid sidoo kaleeto ma jirin dagaal heerkaana laakiin waxaa jiray lama filaana far badan iyadaysan jirin aragtida maanta Soomaalida xumaha ah dhinaceeda markaad fiirisid iyadaysan jirin markaad fiirisid dawladihii ku Cabdirasaaq iyo Cigaal sidoo kaleeto waxaa jiray lama filaana far badan saas oo kaleeto ilaa Maxamed Sadar uu yimaado marka
mar labaad iyo mar saddexaad waxa isku soo aadinaya waxa waaye dhammaadka meerta siyaasadeedka iyo damaca dadka ku wada jiro oo ah isbedelkaas taas waxay macnaa sidoo kale ka hooseeyo oo celinayo buuggan yaren noo dhammaystirayna qabraqoyalka la dhaho dastuurka waxaa kaloo keenaya isfaham darrada dadka aysan u qeexnayn nidaamka xataa siyaasadda sababto waxa ugu waaweyn hadda aad fiirinayso waxa waaye shakiyada ugu waaweyn ma aha shaki shakhsi waa shaki intee aadan ka falgeli karin inteed ka falgeli kartaa oo siyaasiyiinta dhan wada haysto wixii waxay noqdeen macnaa waxyaabo kala qoqoban oo la kala leeyahay oo magaceedana markaad fiiriso federal ah dadkii maadaama kalsoonida ay yar tahay siyaasaddii dhammaatay waqtigeedii macnaa meertadan hadda ay socoto dhammaatay qof walba wuxuu fiirsanaa markaan yareen waxaan dhihi jiray nin walbo naftaa nabiya ummadda mararka qaarkood oo imaanaysa macnaa in la kala tago oo maadaama aysan jirin wax fara badan oo dadka isku xiray ama axsaabta hadda soo bilaabanayo kale marka aad fiirisid axsaabta markaad fiirisid inkastoo iyada laftirkeeda ay ka kala bixi karaan mararka qaarkood qofka uu dooro karo inuu xisbiga ka baxo waqtiyo xasaasi uga bixi karo haddana way ka xoogaa degan tahay siyaasadda hadda anaga ku jirno annaga tan aan arkaynaa maxaan ku dhahaa farmaajo iyo khayre haddaad fiirisatii ka horreysay xasan dad fara badan waxay isweydiiyeen xasan muxuu u bedelay saacid dad fara badan sidoo kale waxay isweydiiyeen maxaa cabdiweli ula dagaalamay qof walba marka taamkiisa dhammaanaya xilligiisa markuu dhammaanayo dabcan ma ka baxayo siyaasadda marka laga reebo allahu naxariista aadan cadde oo yiri aniga bis waaye taas marka anaga tusaale nooma noqon waxaa tusaale noo noqday qaabdhaca siyaasadda haddeertan oo dadka hanka fara badan u qabaan damaca fara badan u qabaan iyo shacabka laftirkiisan runta u bislayn markaad fiirisid dowladan ka hadalna anaga waxaan ka hadalna madaxweyne ra-iisul wasaare isqabsanaya laakiin xaqiiqda markaad fiirisid waxa isu diraayo oon dadka kala hagaynin kala celinaynin waa haykalka sharci dejinta ah ee baarlamaankeena markaad fiirisid mar raba afkeena wada mari inaa lilah dad fara badan oo ilaahay iga dhawa ku jiraan taqiyin ah ku jiraan laakiin haddana waxaad u malaysaa inay ka badan yihiin inta aananba weligood laga yaaba inaysan akhrin dastuurka haddana ay soo joogaan waana naqaana dhaqankaas macna dib ma u raacayna oo aanan fiicnayn waxayse ku fiicnayn cidda soo dooratay waxayse ku fiicnayn waddanka marka isku darka intaasoo dhan oo keenaysa in qofkii keligiis uu iska soofo macnaa waxaa keenaysa in isku soo aado iyo shacabku amakaa ku noqdaan asaga laftirkiisa wax maanta markaad fiirisid waa jeclaan lahay inaad samaysaan maxaan ku dhahaa interview aad ka samaysaan waraysiya jidka aad weydiisaan meeqa qodob ka kooban yahay meeqa section ka kooban yahay maxaan ku dhahaa dastuurka haddartan weli qabya qoraalka ah waxaad arkaysaa in fara badan inaysan kasoo jawaabi karin marka faham la-aanta siyaasadda iyo intii yareedoo noo qornaydoon weli laysla fahmin iyadoo la kala gedisan yahay aragtida siyaasadda axsaab aysan jirin intaasoo dhan waxay keenaysaa lama filaanadan dadka badankeeda u arkaan lama filaan laakiin xaqiiqda markaad fiirsa aysan ahayn waa gartay ma la dhihi karaa siyaasaddan ama tallaabadan madaxweynaha maanta qaaday oo ama baan idhaahdo hadda baarlamaanka maanta waxay codkii kalsoonida kala noqdeen xukuumadda dabcan madaxweynihiina waa uu soo dhaweeyey qoraal ayuu ku soo dhaweeyey marka siyaasaddan waxay horseedi kartaa muddo kororsi ma la dhihi karaa mar labaad cabdulwaxiid ma aha wax hadda farmaajo ugu horeeya muddo kororsi qaababka hadda annagaa soo arkaynay kumeelgaarkii shariif iyo xasan labadii ka horreysay markaad fiirisid shariif isbedelada waaweynka uu la yimid waxay ahayd laakiin ay ku timid waxaa la dhaho israaca rabitaanka ay ku timid in baarlamaankii oo kala bar tirada baarlamaanka intii oo kaleeto inuu la yimaado waxay ku timid laakiin waxa la dhaho consens ama maanaa israac siyaasadda soomaalida isku raacday waa waxaan hore loo arkin maanaa dastuurkii waa laga booday laakiin waxaa looga booday in la wada rabay looga booday dheeraysuu sameeyey wuxuu sameeyey fiiri in wax la dheeraystay in la gaabay in sharciga dhinac la mara sharciga ma aha muqadas waxaa muqadas ah kan ilaahay subxaana wa tacaala kan kale waxa waayey inaad marsiisan kartid dabcan niyad wanaagga ay ku xiran tahay iyo kalsoonida dadka aad ku leeda la shaqaynaysid in sharciga la jibiyo waxay ka mid tahay siyaasadda laakiin lagu jibiyo nidaam waxtar u leh dadka marka muddo kororsiga markaan usoo noqono muddo kororsiga wuxuu ka mid yahay qaadadhaca intii ugu dambeysay oo hadda aan sheegnay sabaha keenayo oo ah dastuurkii qabya ah dadkii unan fahmin sharciga dadka dejinayan weli ku kalsoona maal hore markaad fiirisid wasiiradan la dhaho maxaan ku dhahaa khadiij
naagta wasiirada sportiga khadiijo khadiija Mhm. lecture ay bixinaysa Mhm. ya lecture ay u bixinaysa ay dhehda war annaga ah dadka sharciga dejiya dadka u tagaayo madaxweynaha weydiinayo Mhm. taas macna waxay ku tusaysaa heerka hadday aan dhahaye dadka lagu sheegayo maxaan ku dhahaa xildhibaanada lagu sheegayo inaysan ka saynin shaqadoodii inaysan ka saynin waajibka gacanta kitaabka u saareen marka isku darka intaasoo dhan waxay keenaysaa in qofkii damaca u dhow waa marsiiso kartaa marsiiso laakiin marsiiskaas niyad wanaag iyo lilaahinimo ma ka tahay waa calaamad su-aalka laakiin qaadadhaca ku darsashada waa midaan hore usoo aragnay hadduu farmaajo rabo ma aha waxa ugu horreeyey waxay ku xirnaanaysaa asaga qaabka iyo nidaamku macnaa u wajahayo wuu ku guulaysan karaa wax cusub ma aha wuu ku guuldaraysan karaa wax cusub ma aha waa garta marka hadda xaggee arrintan looga dhaqaaqi karaa iyadoo xaalad ay ku soo aaday oo weliba doorasho dalka galayo waxa waaye mar kasta aniga waxaan dhahaa ma dhaho ilaa wa ilaa professionka keligiis laakiin marar fara badan maamaha cariyo jirta dhehayso cadowgaagu caaqilka wuxuu ka fiicanya saaxiibka dabaalka ah baarlamaankan hadda jira markaad fiirisid waxaa ka tegey mursal waxaa uga horeeyey jawaari waxyaabaha baraha bulshada yaalla markaad fiirisid waxaa lagu tusaa ama aad arkaysaa jawaari oo 18 dhahayo aan ka hadalno doorashada waa calaamad su'aal maxaa dib u dhigay ma ka jawaabi karno waxay noqonaysaa waxa la dhaho tuhun oo macna dhanniya noqonaysa dambi laakiin inaan macna la isku dayna xaqiiqa xaqiiqdaas marka waxay dhashatan intee looga soconaa طبعا sidaan aniga hadda sheegayay maadaama sharci aanan baa lagu sii soconin hadda fiirinaysid maxaan ku dhahaa doorashada inay ahayd barnaamijyada ugu waaweyn ee dowladda ay ahayd inay ka mid noqoto waqtigeeda laga sii taxadaro sideed inay u dhacdo ma dhicin sabab kasta awood hadda waxay imaanaysaa طبعا wadanka markaad fiirisid waxaan democratic-aan nahay federalna waan nahay talada ma malaynaya hal qof inay ka go-eyso marka laga hadlayo doorashada maamulka wadanka hadda haa waa khasab in looga dambeeyo maxaan ku dhaha farmaajo inta uu dhoorayo maxaan ku dhahaa dastuurka iyo xeerarkiisa ilaa haddana sida ay tahay laakiin marka ay noqoto aniga keliya wax go-aansanayo qof keliya wax go-aansanayo ma laha waxay u oolaysaa inta siyaasadda ma dhahay xiisaynaysa inta siyaasadda ay ka go'do oo ah federal stateska dowladda axsaabta iyo wixii soomaali kale ay ku darsan karaan haddii la yimid marka dhammaadka jidka intay noqonaysaa jihada waxay noqonaysaa in intaas isu wada yimaadaan go-aan ay wada qaataan ma noqonaysa hal qof macnaa go-aan ka qaadi karo xataa kuma qorno dastuurkan laleeyahay qabiga qoraalka laftirkiisa kuma qorno marka si loogu darsado waxay u baahan tahay fikir fiican oo dadka macnaa laga gado oo lagu qanciyo haddii aysan imaanin qanac ilaahan kama gelayna waa naqaana xuma macnaa ka imaan karo waa gartay hadda agos mar kale ayaa haddana lasoo reeb shir loogu ballamay marka maxaa dhici kara wuxuu yidhi calayhi salaam markii maka u qabsaday maxaa iga filaysaan waxay yidheen ahlu makaankii oo aan islaamka ahayn waxaan kaa filaynaa wanaag iyo khayr طبعا aayadda qur-aanka waxay leedahay ilahi subxana wataala laa tuqnitu min raxmat illah raxmaddaas waxaa ka mida maanta annaga aan arkayno in farmaajo iyo is hor fadhiisteen maxaan ku dhahaa ninka jubbaland waa raxmad subxaana allah shalan imaysa arki karin طبعا niyad wanaagga islaamnimo aniga waxaan rajaynaa insha allah khayr laakiin qaab dhaqanka markaad fiirisid waa la kala taagan yahay waa la kala taagan yahay waxa lagu kala taagan yahayna dadka si kala gedisna u kala caddahay siyaabo kala gedisna u kala caddahay caqabadahaas marka aragtay kala gedisnaanshahaas keeni karta mayal adayga go-aan siyaasadeed oo ka gedisan in kaleeto waxay keeni kartaa isku dhac waxay keeni kartaa siyaasadeed طبعا kadib waxay keeni kartaa nacuudu billah isku dhac dagaal xaqiiq waay qofkii maanta malaynayo ama dhahayo maya waxba ma dhici karaan soomaalida waxay dhahaan shar fil khayr wax kaama dhici annaga waa inaan fiirino war dagaalaa dhici karo dagaalka markuu dhici karo oo aan kasoo bilowno dhinaca xumayda ah waxay u baahan tahay dadka siyaasiyiinta inay u kacaan ay dhahaan dadka soomaalida war hadduu dagaal dhacayaan lagu orkacsan ilaahay ka cabso dad siyaasiyiin dagaalamayo dadkii la dejiyo hadeertan marka dad waa aaday u suuragal tahay in dagaal dhaco laakiin su-aasha waxa waye dagaalka yaa qofka isticmaalaya dadka isticmaalaya waa siyaasiyiinta
alors waxay u baahan tahay marka dadka Soomaaliyeed maanta in lagu wargeliyo dagaal hadduu dhaco inaysan dagaalka qayb ka noqonin inay degaan dariskooda inay dhowraan aflagaad inay ka dagaalkan hal markun aan ku noqonaa maxaa loo jeedaa dagaal physical aan ula jeedo oo dad iska soo baxa xabada dhacayaan wax diidi kara ma laha arrintan ha in dambayso wax diidi kara ma laha laakiin waxaan leenahay ilaahay kama dhigo haddii marka uu dhacayo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaah laga cabsado iyaan lagu orkasan hadan baabin markaasuu yaraana marka haddaan anaga dhahno nabi baabaha ama dhacayaan tan ugu daran dhacayso laakiin dadka waa inay ogaadaan inuu dagaal dhici karo ma dhahay dagaal dhacay dagaal wuu dhici karaa hadduu dhaco qofka in macna ilaahay la xasuulo ilaahay ka cabso waxaan waa siyaasad bari waa ka dhimanaysaa laakiin siyaasiyiinta waxyaabaha ilaahay hadda tusay subxaanahu wa ta'ala raxmadiisa waxa kamid ah in dadka ugu kala xaq jirsanay farmaajo iyo maxaan ku dhahaa ninka Jubbaland jooga Axmed Madoobe Soma inay macna wada hadleen طبعا ilaahay qulubtooda isku soo jiidi karaa raxmad Soomaaliya ilaahay ka dhalin karaa taasaan rajaynayna طبعا laakiin ma dhahayno ilaa wa ilaa maya wax walba waxay ku dhamaanayaan wanaag ma ku dhamaan karaan wanaag marka dhinac ka fiiriso sababtoo ah waxyaabo fara badan jajab fara badan diidaa jiraan dastuurkii qabya ah siyaasadda la isku maafahay iyada meertada dhamaatay doorasho la galaa bini aadan annahu na'uudu billah oo ilaahay uu leeyahay daciifan ka abuuran daciiftinimada aqliga tartiibtii ku degdeg shaytaanka kulli intaas oo jir intaas marka maadaama ay xaqiiq tahay ha dagaal uu dhici karaa laakiin tusaale waxaan u soo qaadanaynaa dagaalkii ka dhacay maxaan ku dhahaa Sheekh Jubbaland ma ahayn dagaal dadka in far badan saameeyay qabiiladu is arkeen oo lagu leeyahay dawladda wixii kala socda intana taas oo kale ka dhici kartaa laakiin taa wala damiyay tan inaysan dhicin waxa la keeni karaa in dadka lagu wacyigeliyo especially idinka dadkeena media ku jiro in dadka macna lagu wacyigeliyo dagaalka samaysan ka qaybgelin inay isdhowraan in hadhow maxkamadda soo saare ama ilaahay uu samacnaa subxaanahu wa ta'ala usan iloobayn laakiin xaqiiq waa labada mid inuu noqonayo waa gartay aan ugu dambeyn professor Ciise Maxamuud Xalana bilowga waan aragnay waa kala tagan marka maxay ku dhamaan kartaa aniga waxaan dhahaa xariiqa taariikhda in adduunka markaad fiirisid inta iskoolaadka lagu dhigo ama waxbarashada laga sheego waxaa laga bilaabaa adoonsigii gumaysigii dagaalkii sokeeye iyo hadda midaan ku jirno new world order intaba markaad fiirisid annaga markaadna fiirisid Soomaalida iyo caalam al-islaam markaad fiirisid waxaan ku soconnaa in fara badan oo sheegan maxaan ku dhahaa shaykhda maxaan ku dhahaa daaciyiinta ah sidii Sheekh Mustafa wal khayr Allah siiyo waxaan ku dhaqanaa nidaam anaga aan ka siin waxaan ka siinin waxay ku dhamaanayaan dib anaga waxaan loo keenay democracy macnaha democracy-ga xaqiiq markaad fiirisid dadka waxyaabo kala soo tahay siyaasadda Soomaalida qeexitaanka dadweynaha macna kale oo leedahay waxyaabahaasna loo dhiibo oo aanan ka siinin caqabaday leeyihiin way fiicnaad in la kaso systemka ama nidaamka anaga isticmaalayna hadda waa federal lagu leeyahay xaqiiqda markaad fiirisid shacabka Soomaalida markaad fiirisid waa uu la kala qoba maahina maaha ani waxaan arkay wiil ka yimid dhinaca Puntland dhinaca South special xamar markii ugu horreysay arkay faraxa iyo kalsoonida iyo warka ka muuqda markaad fiirisid wiilkaas waxaan dhihi karaa Soomaali dhab ah jacaylka iyo kalsoonida ka muuqda calanka Soomaalida oo arkay kaliya dadka markaad fiirisid alxamdulillah wadad runta aad isu jecel laakiin nimanka siyaasiyiinta la dhahay markaad fiirisid way ka weyn tahay dantooda danta siyaasadda badankood siyaasadda markii la dhaho laakiin aayadda quraanka waxay leedahay markii desperation kaanu kala yimaado waxyaabaan aan ilaahay ku xasuusta kamid ah wamakaru wamakara Allah wallahu khayrul makirin makriga ama aragti la'aanta ama gaabiska fara badan dadka siyaasiyiinta ku jira ilaahay waxaan leeyahay influence kale ta banaanka macna uga imaanayo waxa ka weyn marka shacabkan waa shacab islaami ilaaha untay ilaaha naga jecel ani waxaan filaa waxaan taaganay la taqoota min rahmatillah khayran rajayna sababtoo markaad xamar fiirisid meesha ka iimaanta markay joogto aniga dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay xamdiga badiya inta maanta aan joogno wax sheeganayna khayri farmaajo haysana laakiin khayri farmaajo waxaan ka soo tagno ka nimid markaad fiirisid ma aha wax la isku dhigi karo meesha aanu socno markaad fiirisid طبعا ani waxaan arkaa khayr far badan laakiin taas waxay tahay in ka timaado dadka insha Allah